بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت هودا نقلا سعوتاي كسو دوادا برنامج كان وانو كدياريني مدحونها جمهورية الصوماليلان مدن موسى بيحي عبدي oo qasriga looga arrimiyay jamhuuriyadda Soomaaliland kulan ugu sameeyay badi culimadii ka soo qayb gashay shirweynihii diiniga ahaa ee ka qabsoomay caasimadda Hargeysa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee iskugu yimaadeen culimada waaweyn ee deegaanada ay degan yihiin dadka ku hadla luqadda afka Soomaaliga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulankan uga gol lahaa inuu dhiiri geliyo culimada isla markaana uu la dardaarmo sida ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen adkeynta amniga guud ee ummadooda iyo horumarinta bulshadooda waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada xubno kamida golaha wasiirada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga xaakimka talada Soomaaliland haya ee kulmiye iyo badi culimada diinta kala duwan ee ka soo qayb gashay shirka saddexaad ee culimada waaweyn ee dalka ku hadla afka Soomaaligu ay ku qabsadeen caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa barnaamijkan ayaan idinka diyaarinay ee idilkiinba daawasho wacan oo wanaagsan quruxda adduunyada waxa ka qurux badan quruxda aakhiro iyo karaamada Ilaahayna hubiye walaqad karamna bani aadama karaamada ugu weyn oo Ilaahayna si waxa weeyaan inuu ka dhigay dad muuminiina oo Ilaahay qalbigooda geliyay diinta islaamka iyo yaqiinta taasuna waa intii laga hadlayay muddadii koobnayd 4 maalmood ahayd ee madaxweyne adigoo runtii aan kala tashanay ay codsadeen in maanta mu'tamaradii laga qaban jiray Yurub ay ku bilaabeen Soomaaliland geey Soomaaliya mu'tamar nasab u yeelanay guud ahaan Hargeysa iyo Jaararka haday takilka shanaad ee dowladdeegaanka Soomaalida dad doora ka yimi oo dhageysanayay oo madax dhaqameedna leh ganacsato leh culimana leh waxa u yimaadeen runtii fursad qaaliga ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay in culimadu ay wacdido nasiib wanaag ah in intii lagu jiray mu'tamarka si nabadgelyo ah ugu socday wax buuqay wax si jira aan u dhicin hoolkii weynaa ee ku qaban jirnay shirarka kongareesyada xasaabta ayaa sidii wasiir Saciid Sulbaxale yiri wuxuu waa markii aan u horeysay kulan bila dambi aan hoolka ku galo marka farxad bay ahayd runtii hoolku buuxay rag dumar waa islaaka hadaan dumarku naga badnay dabada la fadhiyay roobka xalad dabadu ku helay anagoo ducadii sugayna iyo khatinkii culimada sugayna dabadu roob ku helay baahi iyo muxuu ahay gogashay loo dhigay bay ay ka gabood ka dhigteen xaga maartay muxuu ahay dabayshii iyo roobkii waxaas waxay kalgacayl loo hayo diinta madaxweyne hadalka badin maayo waxa sharaf noo ah maanta in mudane madaxweyne aad nagu casuumtay majliskaagii iyo maqarrigaagii adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan madaxda halkan ka soo qayb gashay aad baan ugu faraxsanahay runtii alxamdulillaah istiqbaalka iyo soo dhaweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanine diyaaradda la nagu hor yimid aad iyo aad loo soo dhaweeyay runtii waxaa lana dareensiiyey annagoon yani madax iyo maamul iyo midna qabanin inaanu wasiirro kala nahay ama madax nahay baa lana dareensiiyey meesha sida gaarka lana soo dhaweeyay oo VIP da ma leeyahay sidaas lana soo dhaweeyay alxamdulillaah arintaasina waa arin aad idinku amarteen weey Allah idinka abaal mariyo waa idinku ducaynay inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday kulanka diineed uu socday waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo laga helay waxa weeye waa duco لأنه ummad badan baa isu timid qof khayr ku jira Ilaahay baa og kuweena meelaha ka hadalay sheekh la leeyahay Ilaahay baa xalkooda og laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka kamid ah ayaa ducada meesha lagu ducaynayo aamin ay oranayaan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajiibaya marka muslimiintu inay kulmaan oo shir yeeshaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira nabiga kaleey salaatu wasalaam si gaar u tilmaamay ducada jamaaciga qofku waa iska ducaysanaya waliba markuu habeenkii kaliya Ilaahay u baryayo ducadiisa insha Allah waa mustajaab laakiin si gaar nabigu wuxuu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam uu yiri ma daa qawman wa amana ba'dhum illa ajabahum Allah
jamaaca isuma timaado qaarkoodna ma duceeyaan qaarkoodna aamin ma dhahaan ilaa ilaahay waa ka ajiibaa dee saan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba ilaahay gacantiisay ku jiraan cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jiraan wax alla waxa khayr ahayn rajaynayno xukuumatan wa shacban ummaddaas meel kasta joog soomaaliya oo dhan meelay joogta iyo khaas ahaan ummaddeennan walaalaheena somalilan xukuumaddooda iyo shacbigooda iyo waxaa la rajaynaya khayr ahayn la sheegayo walaalkeen uu ka dhawaajiyey dad badan oo faqri iyo masaakiin iyo marad iyo xanuun iyo intaba ay jiraan dee kan rafcin kara waa allah subxaanaه wa tacaala biyadihi kulu shay marka dariiqada keliya ilaahay wax laga helaana waa in laysu beenbihiyo oo la baryo oo si miskiinnimo ah weliba loogu sheegto ilaahay markuu nooga sheekeynayey zakariya calayhi salaam nebiyadii ambiyada ilaahay ka mid ahaa baryadiisaa ilaahay noo soo siduu wax u baryey baa ilaahay nooga sheekeeyey dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya oo muxuu igu ducaystay muxuu yidhi qaala rabbi inii wahana alcadmu minii ilaahu lafahaygii waa jilceen washtacala ara'su shayban timtaydii waa wada caddaatay wa inii khiftu lmawaaliya min war yani ilaahay uma baahna ilahay waa ogyahay inuu gaboobay oo da' noqday oo lafihiisii jilceen haddana ilaahay buu u sheeganaya wuxuu ilah intaasoo dhan oo haysata waxaa iiga daran weliba islaantaydiina waa caqiima wax ma dhasho intaasoo dhiboo isu tegey baan haddana ku weydiisanayaa wiil isay waa tii loogu bishaareeyey ilaahay wuxuuna barayaa sida aanu isugu bembahino oona u barino oonu ugu ashtakoonno u sheegan marka kulligan horta saasaanu isfaraynaa xilkaa iyo madaxtinimada iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aad badisaan ilaahay idinku garab galo innagana waa idin ducaynaynaa in sha allah mid yar oo waxaan waddanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aad iyo aad ilaahay uga mahadinaynaa nabadgelyo waxaan odhan karaa anagana mujaamalo iga ahayn oon cidna ugu dhowaanaynin oo cid garaadda kugu siinaysay cidna aysan jirin meel ay ka jirta adduunka inay yar tahay nabadgelyada halkan taalla muddo waxaan u malayn 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer qadar isa soo raacnay oo niman culimo waaweyn oo dakaatiri ay ku jiraan eraboorka lanaga soo dhaweeyey sheekh ismaaciil iyo aanu ku soconay iyo jamaacadii dacwada si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey gaari fiican baa lana saaray markii aan xoogay soo soconnay oy arkeen wadooyin iyo maxay ahayd taraafika iyo askar waddadii kala hagaajinaysay iyo markii ay arkeen dhismihii iyo ayay af carabiga ku sheekaysanayaan ninkana wadaana af carabiga wuu yaqaanaa mana ogeyn inuu af carabiga garanayo iyagu waxay dhahaan subxaana allah هذه بلاد فيها حكومة كجرت وحانو مقلي بين meeshaan si waxba ka jirin kii Ismaaciil baa loo jiray gaariga nagu wado markuu xantoodii maqlay buu wuxuu yiri Sheekh Cabdirashiid waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa sii mariyo ma sii marin karaa haa mari baan suuqu nagu leexiyay saa waxay u tageen lacagtii oo kurjada oo iska taal oo weliba goor duhur ay ahayd oo dadku kala rawaxeen wiil yar intuu la joogo weliba intuu lagu hiisii saartay iska jiifo hurdaba waa maxay waxaan waa lacag baa leeyahay inta doontaad heli karta haddana markaasuu na leexiyo suuqii dahabka oo ay foodle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen waya madaxay qabsadeen wallaahi bay dhaheen amniga meeshan yaal inuusan waddankeena ul qadar baanu ka nimid dawladda ka taagantay waxa ilaahay baa laga helaa ilaahay baa keenay amniga ilaahay baa keenay xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemana طغيان iyo xogay talaxtag baa ku yimaada kala in al-insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna horta in ilaahay aan ku shukrino in ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu muhiimsan waa amni istiqraar kaasa ilaahay nasiiyay wadankeena aan ku aragnay alxamdulillah aad iyo aad inaan ilaahay ugu mahadin ma hadda ugu weyn in ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu mahadinaynana ay noqoto inaan ku shukrino wa shukruhu ta'atihi in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigan subhanahu wa ta'ala aanu ku caasino alxamdulillah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay wasiiradiina soo booqanayay in dadaal xoog leh lagu jiro oo aad iyo aad u weyn sidii loogu hortagi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya
fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kasta ku faafay sidii looga hortagi lahaa oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyay wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoog lagula jiro mukhadiraadka oo la ogyahay dhibaatada maanta ay tahay marka warkuusan ila sii talax tagin waxaan socodkeena uu ahaa inaanu idin mahad celinno soo dhaweynta aad iyo aad u wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadhin xukuumatan wa shacban aan loo kala hadhin inaanu idinku mahadinno inaanu idin sheegin inaan idin ducayni ilaahay idin barinay in sha allahu tacaala ilaahina subxaanahu wa tacaala horumar iyo barwaaqo iyo bashbash fi dunya aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisii una geeyo taasaan kusoo gabagabaynaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بروتوكولka kole kuma fiicniyo anigu kuma bandi laakiin waxaan leeyahay madaxduna waa salaaman tahay dadweynahana waa salaamaya intaa waxa loo dhaafaa waxa weeyaan waa uun inaanu idin mahadnaqno waddanka nabadgelyadiisa iyo programkaasi aan wadnay sidii fududayda noogu hirgalay dowladduna caraaqil lagu keenin shacabkuna caraaqil lagu keenin si fudud oo runtii aad u fudud uu qabsoomay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala wixii khayr ku jira inuu ina wada waafajiyo wixii shar ku jirana in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga ilaaliyo waa ducaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Somaliland dowladdayadii xukuumaddayadii dhulkeennii aanu nimi sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ah caalim qaari ah oo muqri ah oo mustawihiisu uu dhaafsan yahay soomaali ama qaarad adduunkao dhan raqam wanada ah raqam waaxidka ah oo sheekh ibna sheekh ah marka waxaa sharaf weyn inoo ah mudane madaxweyne muuse biixi cabdi inuu nagu soo dhoweeyey somaliland waxaan bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala shukri ballaaran u gudbinaynaa madaxweynaha xukuumatan wa shacban intaanu joognay waxaanu daraynay inaanu joogno dhulkayagii dowladdayadii dadkeennii da'yar iyo da'weyn dumar iyo duqay dhammaantood qulubtay noo fureen halkaanu tagna waddadaaba mari waaye anigu cashooyinkan oo dhan war waa janankii ma aqaan meelaanu isku baranayo malaha intii yareed oo kaftanka ahayd oo aan xaajiga hawada u soo mariyey waxay ugu dareed markaa soo galay madaxtooyada corneel baaba salaanta taagay oo war waa janankii marka dee taana meel ha ii taal mudane madaxweyne si ballaaran oo aanan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay somaliland dareenkayagu ama maxay ahaydayay qalbigayagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay somaliland waxaanan jacayl ahayn waxaanan wanaag ahayn waxaanan soo dhoweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba taana qalbigayaga saameyn xoogan bay ku reebtay anigu hadalka badin maayo culimmadii baa joogta raggii waa ku dhan yahay dal iyo dibad ka yimi nin doorkii oo dhan baa jooga waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku shukrinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo maxay ahaydayay shacabka mar iyo laba iyo saddex iyo intaanu doonnaba waa soo noqnoqonaynaa waxaana tahniyad ballaaran halkan ooga dirayaa shacabka somaliland meel kastay joogaan waxaanu leenahay nabad iyo baraare iyo barwaaqo ku noolaada ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi iyo sharaf allah idin kordhiyo annana waa idin ducaynay waana idin maxay ahaydayay karaamadii aad inagu soo dhoweyseen oo culimmada halkay idinka joogto oo aan maxay ahayda idinka dareennayna dee taariikhdaa qoraysa sida uu wasiirku yidhi halkan waa meeshii ugu horreysay
oo aanu ka doorannay carro Soomaaliya Soomaali meelay degan tahay oo dhan taasina runtii waa inaad maxay ahayd ay noo ogaataan mutamarka intan oo kale ani iyo culimadeennaba in aan imaado maxaa yeelay nabadda ballaaran oo taal maxaa yeelay wanaagga yaal maxaa yeelay culimo jacaylka iyo diinta taal maalin dhoweyd baa waxaa ka dhacday Hargeysa musaabaqo qur'aan oo aanan adduunka sida uu Sheekh Cabdirashiid ba markhaati ka yahay 10 qiraa'ood oo qur'aanka ayaa waxaa lagu qabtaa Kuwait iyo meelo dhowra haddayaan Kuwait ba ku koobnayn Kuwait kaliya weey waxaa ka qayb gala waxaa loo diraa maxay casumaad adduunka oo dhan carab iyo cajam iyo meel walba waxaa ka soo qayb gala 14 kaliya markay ugu badneed 14 13 sheekh sida ma tahay waa Kuwait casho dhawaad bishii hore halkan waxaa ka dhacday Hargeysa Somaliland musaabaqada 10 qiraa'ood lagu tartamayay waxaa ku tartamay dhowr iyo 20 tartame taariikhda ma ka dhicin intaan ognahay waxa taa raacda waxa tartamayay waxay ahaayeen wiilal iyo gabdhaba waa mid kaloo aad iyo aad ii soo jiidatay waa waxa inagu xambaaray in aan ku nuuxnuuxsano oo go'aan adag ka gaaro halkan inaan mu'tamarka ku qabanno marka shacabka iyo xukuumadda iyo maxay ahaydayay madaxda iyo mudane Muuse Bixi Cabdi waxaan ugu tahniyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin diinta iyo maxay ahayd habeen dhaweed muusan dhageysanayay madaxweynahayga baan dhageysanayay oo leh diinta islaamka ilaalinteedu dusha iga saaran tahay oo wixii yaroo ka dhaca oo maxay anigu ilaahay aakhira ay qabsanaya aad iyo aad baan ugu farxay hadal diiran oo qiimihiisa leh marka mudane madaxweyne halkaaga ka wad diin u gargaarka diin ilaalinta maxay ahayd culimo soo dhaweynta culimo karaameynta de annana waa idin ducaynayna بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي waxaan ka baryaa marka ugu horeysa inuu kulanka iyo jamaca inoo barakeeyo kulan uu aqbalay oo alla agtii maqbuul alla inuu inooga dhigo maxaa yeelay kulamada dadku isugu yimaadaan 3 kulan iyo 3 gola ugu wanaagsan golayaasha in khayr la isu farayo iyo in sadaqa la isku boorinayo iyo in cid lagu heshiisiinayo marka waa kulan ka mid ah 3da Ilaahay kulamada uu ogol yahay intaasi waa iga muqaddimo madaxweyne Muuse waa uga mahad celinaynaa kulanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka madaxda kale fadhida wasiir al-awqaaf dhammaan kulankan gabagabadii nadwada kadib culimada qasriga madaxtooyada saakay madaxweynaha ugu qaabilay jazakallahu khayr markaan mahad celinaynaa waxaan ilaahay ka baryaa mid mira dhala oo inta cumrigeena iyo kadibba loo aayo inuu noqdo kulankan midhaha ka soo baxa runtii khayr badan baa meeshan ka dhacay waqti badan baa la geliyey hanti badan baa gashay wuxuuna la qabanaya insaanku qabanayo wuxuu wax ku ool ku yahay marka ay niyadu daacad tahay oo dar ilaahay tahay wixii kale laakiin waa habaan manfuura daal iyo tacab baa laga qaada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkii badnaa ee la bixiyay xukuumad iyo shacab iyo culimo inuu ilaahay inoo ka dhigo mid niyad wanaagsan ahaa oo ikhlaas ahaa oo rabbigay aqbalay hasan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala intaa bacdigeed madaxweyne markii xukunka iyo intaan la gaadhin madaxweyne maadan ahayn oo shakhsi baad ahayd kadibna madaxweynaad noqotay kadibna adduunka waa ka tegaysaa adoo aan madaxweyne ahayn madaxda kalena waa la mid xukunka iyo kursiga ummadda u sarreeya aad fadhido mas-uuliyaddiisana waa wataa imtixaankiisa ilaahay kugu asturo adiga iyo madaxdaada xilka aad haysaan allah idinku asturo waa naas la nuugayo caano badan marka afka lagu hayo marka ay gudhana wax ka khatarsan ma jirto xilkuna waa adag yahay arrinkiisu iyo mas-uuliyaddiisu ilaahay xilka aad haysaan wasiire iyo madaxweyne ku-xigeenna iyo madaxweyne allah idinku asturo oo idinku ducaynayna
mid alla agtii janno ku heshaan oo alla ku asturantaan agtiisa oo khayr ka heshaan ba allah idinka dhigo. wakti kulul, wakti adag, aakhir zaman ah, dadkiisu adag yahay, imtixaankiisu badan yahay, baa noloshu iyo xilku ku soo beegmay oo gebagaba ah. waktina waktigu ka dambeeya waa kasii adag yahay. wuxuu u baahan yahay soo jeed badan, wuxuu u baahan yahay ilaalin badan, waxay u baahan tahay waajib badan oo la guto, waxay u baahan tahay dulqaad badan. intaas oo dhan bay u baahan tahay. social mediahuna waa dheeriyo imtixaan ah. waagii hore bahalkaasi ma jirinba, laakiin iminka wax madaxweyne kasta oo xakamayn karaa dee ma jiro. ayadaa isagoo fadhiyo qofku wuxuu raba sheegaya. waxaan dardaarmayaa madaxweyne, diinta inaad xoojiso sida aad hadalladaaduna ka mid tahay, waa kugula dardaarmaynaa anaguna. intaa kursigaa aad fadhida iyo xilka, caqligaaga, maamulkaaga, aqoontaada, dadaalkaaga inaad isugu geyso iyo xukuumadda iyo xukunkaada hayso diintaa ilaahay horumarinteeda inta itaalkaaga ah. waxaan itaalkaaga ilaahay ku weydiin maayo. fataquu llaha ma stadactum wey. wixii aad qabateen allah ka abaalmariyo, wax badanna allah ku waafajiyo oo dambe. shacabku madaxweynaha aad u tahay duruuf badan baa ku xeeran, faqri badan baa haysta, baahi badan baa haysata, xagga caafimaadka, xagga tacliinta, xagga dhaqaalaha, xag yow badan buu ka dhibaataysan yahay. laakiin wax ka qabadkeedu inta kursiga aad ku fadhido kulli wax kama wada qaban karaysid. waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo wakti dheer. waxay u baahan tahay inaad garab iyo xoog u hesho. keligaa waxaad ka qaban kartid maaha, laakiin marka la iskaashado shacab iyo xukuumad ayaa wax badan la qaban karaya. dadka la tashigiisa, qaybaha kala duwan bulshada, inaad aada ugu dadaashid. ganacsatada, culimada, waxgaradka, dumarka, ragga, dhalinyarada, la tashiga bulshada iyo dhegeysigooda, ciidamada iyo qaybaha kala duwan. shacabkuna waxaan ugu baaqayaa wax alle wixii wanaaga waajib bay ku tahay in isku ka garab taagaan oo kaala shaqeeyaan, maadaama iyagu ku doorteen oo xilka ku dhiibeen. waajib bay ku tahay. inay ku caasiyaanna dembi bay ku tahay. iyagana waxaan leeyahay wax alla wixii wanaagsan samcan wa taacan inay kugu garab galaan. adigana allah kuu fudeeya subxaana wa tacaala. dadkaas baahan, dad baan qadayn oon quraacan oo cashada say ku helaan ay adagta. kuwaa buka, aqalada jiifa, cusbitaallada jiifa, miyiga jiifa, waxay dhakhtar ku agaan aan haysan. dadkaas oo dhani xilkooda waa ku saaray. su-aasheeda waxaa lagaa weydiinaya aakhiro ilahay hortii subxaana wa tacaala. waa waxaan u leeyahay ilaahay ha kugu asturo xilka iyo mas-uuliyadda. laakiin dadaalka aad samaysid iyo xilka aad dadaashid wax weyn bay ka noqon kartaa berito iyo hawsha caynkaas ah. hawshaas aad baan u dardaarmaya shacabku iyo waktiga la joogo. waktiguna waa adeeg yahay. samirkan kuu dardaarmaya iyo dulqaadka. waa lagu maagayaa, waa lagu caayayaa, qaar baa kugu soo farabaxsanaya, burka la soo cararaya deer markay ku arkaan. dulqaadka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo wixii la mid ah waa kuusii dardaarmaya insha allahu tacaala. waxa weeyaan odaynimada iyo waayo aragnimadu dee kula socotaa wax weyn ah aad shacabka fahamsantii. taana waa dardaarmi lahaa madaxweyne. waa iga dardaaran. saa mar dambe isu arki doono ilaahay baa garanaya. oo madaxweyneyaasha sida loogu soo galaaba adag. annagu albaabadan guryahan joogna waa masaajidda waa iska furan yihiin, laakiin madaxda ku aragto waa adagta. kelmaddaa dardaaran iyo dar ilaahay bay iga tahay. markaan saa kuula dardaarmayo ilaahayna waxaan ka baryayaa kulamo kaloo wanaagsan in isugu kaayo keeno. xilkaa aad haysa adiga iyo raggaa kalena ilaahay inuu idinku asturo. horumar adduunya aakhirana ilaahay idinka siiban alla ku dardaarmaya. sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed. waa mahadsantihin. wixii aan khaldayna raalli ahaada, wixii aan asiibana alla ha giibay subxaana wa tacaala. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madaxweyne ku-xigeenka, ra'iisul baarlamaanka dhammaan waa idin salaamaya. jazaakum allahu alfa khayr. hadalka badin maayo. waxaan ku soo aruurinayaa uun alxamdulilah rabbi alcaalamiin. bil ka hor markii noo yimaadeen akhuuna cabdirasaaq iyo wafdi uu hogaaminayey oo ay naga dalbadeen inay shirka islaamiga iyo muctamarka inay ku qabsadaan somaliland
hargeysana ay ku qabsadaan oy culamadii dibad iyo gudaba ay iskugu tagaan si sharaf liyo ayaanu ku qaabilnay waayahay baan ku nidhi gogoshu waa gogoshiinii waddanku waa waddankiinii dadku waa dadkiinii soo dhowaada alxamdulilah mubaasharatan waxaanu ka soo galnay oonu la xiriirnay wasaaraddii diinta iyo awqaafka wasiirna sheekh khaliil oonu awal ka helnay muxuu ahaa muwaafaqadii koowaad markaa si sharaf iyo qiimo leh ayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin u dhacay annaguna annaga dowrkana saaranna wuxuu ahaa haddiiba kuu rooyahay culamada soo dhoweyntoodii iyo in laga shaqeeyo sidii ay u nasan lahaayeen dowladduna nooma kala hadhin ama wasaaradda diinta awqaafta ha noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa marka halkaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum adduunka waa lagu faanaa adduunyeynuhu magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah dalxiiskay kordhisaa magaalada magaceeday qaadaa waa waxa la yidhahdo soft powerka waxa la yidhaha wey oo maxay tole intaasoo iminka intaasoo milyan oo qof baa ka daawaday online ka daawaday dhacdooyinka maxay tole ka daawaday market kumaad bixin lacag kumaad bixin adduunkana in la ismarket gareeyaa waa lacag badan bay bixisaa marka waxyaabaha waa tala magaalo heblaayo waa ta la yidhaahdo waxaa lagu qabanayaa tartanka gaadhiyada ayaa lagu qabanaya tartanka maxay ayaa lagu qabanaya wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradahaba lacag ku bixiya oo u tartamo yidhahdo annaga noo keena oo waad ogtiin iminka in la yidhaahdo meel heblaayo waxaa lagu qabanaya olombikii baa lagu qabanaya ama meel heblaayo koobkii adduunka lagu qabanaya tartanka adduunka ka dhaca waynagoo og maxaa la raadinaya waxaa la raadinaya magaca in la raadiyo marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hargeysa caasimadda somaliland bifadli illaahi wa karame taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo qur-aankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran abaal baanu haynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum sida ay dowladdu noo soo dhoweysay xaqiiqatan abaalkaa maxamed waan haya waxaan kaga baxayaa culamadii dibadda iyo gudahaba ka soo qayb galay jazaakum allahu khayran sacaadat alra'iis intii dibadda kala socotay online-ka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid maxamed oo life maxamed u yimid muxaadarada bilaabmasa 4 iyo barka la furayo dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen dumar yar markaas intay qaacadu buuxsanto ayaa hoteelkii weynaada ogeedee Mansour ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa goro meeshii lagu ciyaar jiray kubadda garoonkii ku yaalay hotel Mansour ayaa la sii goglay geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxay la dhigay maxay markhaati u tahay arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacaadat ra'iis inay u ooman yihiin oo u baahan yihiin oo soo dhaweynayaan kitaab Allah wa sunnata rasuuli sallallahu alayhi wasallam in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahansiiyo khatarta xaq jirnimada khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa kaliya ee sacaadat ra'iis awdi kara ee yarayn kara waa cilmiga saxiixa ee sharciga oo la faafiyo iyo dad culimadu adduunku ay ku kalsoon yihiin culimadii dadkan diintooda u hayay ee culimadu kalsoonida u haysay iyo dadkii la istuso oo u yimaadaan halkaas waa halka koowaad ee aynu ku yarayn karno waxa laala wixii khatar ku ah diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aad u soo dhaweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba in aynu maxay tole samayno jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wasala allahu calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah mudan madaxweyne dhammaan wasiirada iyo madaxda waa salaamantihiin waxaan salaan idinkaga siigaa markaz tawfiiq alislaami ee degan Norway runtii ah masjidka ugu weyn ay muslimiintu halkaa ku leeyihiin Soomaalidu ku leeyihiin waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii albaabadii leenoo furay iyo khayrka halkan ka dhacay oo run ahaantii iyadoo markii ugu horreysay ay tahay Hargeysa aan imaado haddana runtii waxaan halkaa kala baxay in ay tahay meel runtii uu qofku aad u jeclaado inuu ku soo laalaabtan runtii u jeclaado waan ku faraxsanahay albaabada furan iyo khayrka marka leenoo saamaxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo mas'uuliyadda haysaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkiin ha galo وجزاكم الله خيرا إلهي بقى مهدله إلهي بقى مهدله نقول سماي فرصة النسيجي أنت نوع علماء النوت هذا وندعيه وهو دفي نادر dadka ay helaan marka aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa cidii noo keentay khayrka iyo intaas oo culimo ah iyo ducadii
iyo wixii wanaag ahay dadka farteen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ina karsiiyey idinkana waa idinka mahadnaqaynaa intii ka hoshootayna waa uga mahadnaqaynaa waananu jecel lahay mar walba iyo goob walba intanoo culimo ah oo ummadda o dhan ka imanaysa oo khayrka iyo wanaagga if iyo aakhiraba nafaraya inayna xusuusiyaan annaga iyo ummaddayo waa hiil waa garabgal aanu aad iyo aad soo dhaweynino dadka ka shaqeeya diinta iyo wanaagga soo dhaweyntaa kadib hadal badan malaha maanta halkan kama fura oo waxaa la idhaahdaa dee ninkaa dheera wax lama tuuso ninkaa aqoon badanna wax looma sheego dee marka intanoo culimo anigu hadal aan kii aanu qanin dee halkan ma yaallo marka waa iska gaagaabsanaya marka hore aniga iyo culimada anigu waxaan umalaya inta halkan fadhida ma wada aqaano badankooda waan ka weyna inta horta aan garanaya sheekh xasan cabdisalaam baa ugu ciro weyno dee aniga xaggayga waa ka ina yar waa caruur sheekh mustafa on dee islahaw ani weyno waaba kan iska riixay labadaba dee dhan ba iga macalimiid oo sheekh mustafana ummaddo dhan baa dhegeysata ilaahay ka abaalmariya wax badan buu ka taray dhinaca diinta nabadda horumarka aqoonta waa nin aftahamo ilahay wax siiyey oo maqaal kastoo la dhegeysto waad ku nagaanaysa marar buu mashkalada haysa aan ka dhegeysta isagoo xalinaya jazaaka allah khayr sheekh xasanna dee waa raggii soo bilaabay diinta sideetamiyadii soo iyagoo caruura dad badan soo tababaray anigaygana aan wax badan ama bugaagu ii keeno i baray ama waano intaanana soo joogay aniga culimada horta anigu culimada waxaan ku garaadsaday iyadoo culimadu aad iyo aad loona karaameeyo ilaahayna karaamiye awood siiye wixii ay dhahdaan baa laka aqbala markaaba marka maalintii dhowito taarikhdu waa iska saxaysaa markii la yidhi janan baa la socday waadada ayaan ku uri janan iyo culimo maxay isu keenay anugu jananada sas baan ka qabayo jananadii culimadana laaya aayadana fasakhay markaan janan maqla kii yararka naga xidhay waadada ee aayadaha naga bedelay dee anigu sheekh culimada la socdo oo sheekh oo xaggii diinta jannabo ka qaatay dee waa ku ducaynaya waana kaaga dambaynaya anigu dee janan magaalo cornelia baa la yidhahdaa janankii islaamka noqo oo waa kugu dabagela hadda inoo qaado baaraka allah fiik janan diinta inoo haya weliba saadaa adiga marka la jananka soo socda walaa fiisa walaa hadal sheekh galoonkana waxaanu siinaya ciidan dee sheekha seeftii ku qaado waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oon iska codsanayna horta somalilan iyo soomaaliba nabad gu duceeyey dowlad ahaan ma aha tuulo nabad gu duceeyey soomaali khilaafkaa ku batay oo meel walba gaadhay khilaafkii baa aad iyo aad inooga ogfaaday soomaali inta ku hadashaba waa ka simantay meel waliba marka haddaa culimada tihiin ilaahay inaanu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weynna ka qaataan si dadkii hore in dadka la baro nabadda oo khilaafka laga anu markaa ayaan idin sheegaya mig soo koray culimadu sanadkii mar bay soo bixi jirtay geela maraa laga bixin jiray iyagoo boqolay iman jireen waa la kala boobi jiray tawlaa la shido ayaa geela maraha iyo sekada iyo ducada waxay ahayd yani xajka oo kale markay culimada daan markay jiidaa marayaan hawdkoo dhan ma mari jiray dee idinkana sidoo kale ka raba ama gawaari kaxaysta ama lugeeyo ina sheekh cali sufaan halkan maraya haddii la yidhaahdo hubka waa la wada dhigi inaad tiraa dadka war bal aakhira intaa gaaraysaa nabadda oo reerka ay isleynaysaan iyo tuulada iyo ceelasheeda isku haysataan dee iska daaya waa mashkiladu soo soo baxdee taa waad ka codsanayaa in nabadda duco iyo ficil ba ku darsan janan calan u qaado nabadda soomaalida tuulo walba dhexdeeda maaha dowladda waa inuu dawada ka soo bilaabana waana caam meel walbay ka taagantay maanta laba somalilan waxay uga ducaysaan laba waxyaalood duco waa laga aqbalay oo waa nabadda oo haddii runta laydin sheego nabadda tiirka koobaad waa culimada mustafe iyo xasan baa ila fadhiya iyo intooda kale annagoo jabhada gudaar fadhina ayay nala daba taagnaa qalad baa ku jirtaa ka daa waa nimanka noogu dhiiran maanta haddii qalad dhaco wax laga tirsado oo madaxweyne ama dowladdu way qaldan tahay nimanka aan cidda weydiinin inta albaabka dhuftaan dhig wax hadayso waa iyaga
saaxiibtinimo way igu dhici karaan aqoonna way igu dhici karaan go-aankooduna waan aaminsanay inaan danaysanan iyagu ee waxay ka hadlayaan dad qaran ay tahay mararka qaarkood aan iskoo diidana ray marka culimadu heerkiisa joogaan iyagaa kow ka ah culimada lafteedu waxay u baahan tahay looga ducaynaya khilaafka waanu wareeranaa labadii culimo hadday kala jiitaan wa markay laba kitaabo kala jaad ay akhriyaan midna seefta qaado midna idhaa mee adeer sulxa ku eg dee waa dhibaato marka culimada lafteeda in aada iyo aada loo badiyo xagga nabaddan anugu ogolay waayo nabadda iyo sulxaa dhaama in la isu qaado budka marka intaa la xoojiyo waxaa la leexi culimaa ee sulxaa wada ee mashkaladda caqli ku xalinayana arday baan ahay waan daba socda marka in aad taana ka qayb gashaan baa loo baahanya ta saddexaad faqriga soomaali cumuum ka dhigay ee soomaali ay la wada baahan tahay cidda ka saari karta ee mas-uuliyadda saaran tahay waa culimada waan ku celinaya daliilna waan haystaa culimada wali waa tiiri haddii sekada culimadu maamusho sekada somaliland maanta sheekhaa diintaan u dhibin waa dastuuri waanu fulinay shaqo kuma lihin culimadaa loo dhiibay khudbaduna waad joogtaa qof waliba oo waa ka raale aniga madaxweynaha ka bilow in sekadii la ururiyo oo dadkeena dayacan lagu daryeero waana taqule lagaa bixi kara dhibaatooyinka gacan bini aadmi oo kiniise laga soo ururiyo waxba naanfici maaya soomaali anfici waaya soddon sano wadi weli meel khayr ka keenaan lama arag horena in badan baanu idhahdaa markaa taana waxaan ka codsanayaa maanta isu dhantihiine magaalo walba sekadeedu ku filan tahay iyo deegaan walba sekadii hala ururiyo oo sidii islaamku sheegay ha loo qaybiyo oo annagu waan ku wareejinay ciddii hawshaa lahayd wasaaradda oy culimada kale ag joogto degmo walba waan ku celinayaa somaliland waxaan isleeyahay gobol walba iyo district walba sekadeedu way ka saari kartaa 60% faqriga haya dee sheekh yaal xantana waa la isla yogay maanta lacagta xagga culimadu badantay shirkadihii maanta dee culimadu badayay markaa inoo maamulo oo faqriga intaan iska saaro intaas waa intaan sida culimadu waxaad kala qabato oo aad iyo aad u soo gurto mar labaadka aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaa koran culimadu ku baraarujinaya dadku waxa haysataan awood aan cidina haysan aad baan idin dhegeystaa dadku waxaad tidhaahdaan sidaa ay cawda u dhigteen masaajidka ma jirto cid ka loo dhegeysta culimada waxaad ka rabaa soomaali magaca ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labadaa arrin baa haya faqriga iyo khilaafka waanada wax ka badan inaad qaadaan oo la arkaa idinku laba ka shaqeynaya anaa ad ku raaco 3,000 ee cajirood uu sheekh mustafa ee dhegeysanayso dee intay sheekh bashir baa ka dhimanay bilaalaha waxna ku dar ducada waa soconaysee sheekh mustafa wala war joog hayro qaldato kulba meel ka xalay arka dee ayaan dee u soo jeedinayaa intaas naga dhiman waxaan filayaa laba in wax badan kaga baxayno madaxda si darka hogaamiye la dooranayo lagu daalaya waxa ayaan wayartay waa ta koobaad adduun ay wax ku maamulaan ma hayaan waxaan ku bixi karaa inagoo labaa ku tusano intaasi waa iga waarimadayda aad iyo aad baan mar labaad idinka mahadnaqayaa waa idin soo dhaweynayaa waa gurigiindii markaad doontaan shaksiyan halkaas waa sidaa ay ku timaadeen bay ka dhib tahay oo aynu wixii muslimka iyo soomaali lagu hornimay laga wanaajiyo wanaaga waa idinla dhisaynaa warwarra ma leh culimada imaatinkeeda markay inoogu horreysay aad baan iskaga xisaaray daawadaal intaasaynu ku soo afmeeraynaa kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ugu qabtay culimmadii ka qayb gashay shirweynihii diiniga ahaa ee ka qabsoomay caasimadda dalka jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale ah muwaadin ka qayb qaado horumarka dalkaaga